إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى wuxuu kitaabkiisa ku tilmaamaya reer nebi aadamow haddii ay idin yimaadaan rusul xaggayga ka socota oo idinka mid ah oo idinka warramaan aayaadkayga baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala: faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya, falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma ahaanin baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. insaanka mashkiladaha ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn. ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini aadamka ka kaxeeya. waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatinka bini aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga ah bay yidhahdaan waa macdala, waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini aadamka ah soo mara fii kulli zamaan wa makaan, wakhti kasta iyo meel kastaba. waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraa bay leeyihin: ima طugyaan aw ilfawda, laa amna walaa istiqraar. deganaanshiyo iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa. labada gebi midunbuu ka dhacaa: mid ah fawda, dadku inaanay yeelanin kala dambayn oo fawdo ay noqoto. fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa. aw iطugyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah, kuwo kibray oo qooqay inay dadka maamulaan
oo dabeetana dadku uu xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba hadday fawdo tahayna waa baqa iyo cabsi iyo cadamulistiqraar degnaanshiye la'aan hadday dictatorshipka iyo tuqyaanka noqotona iyaduna waa cabsi iyo deganaanshiye la'aan idan bulsho ama ummadi waxay heshaa alamni الnafsi waاlijtimaaci naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay nabad noqotaa wuxuu qofkiisu nabadda dareemaa qof waliba marka uu raaco ilaahay subxaanaه wa tacaala طariiqiisaasi deganaanshiyaha iyo nabaddu waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay sulamu الtaqadumi wاlxadaara horumarka bini aadamka iyo xadaaradiisa sallaanka loo fuulo inuu yahay alidiraab waalkhawfna dadkoo degi waayo xasilooni la waayo nabad iyo amni la waayaana waa طariiqu takhalluf waa jidka dib u dhaca ee noolaha uu maro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa ugu horeyn nabadiyo amniga in ilaahay kitaabkiisa laga helo faman itaqaa wa aslax falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun xawaalay 14 aaya baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddii kitaabkiisa lagu qumanaado haddii diintiisa la raaco haddii rusushiisa la rumeeyo haddii jidka ilaahay uu dadka u soo dejiyey la raaco haddii hanuunka aniga iga yimi aad raacdaan baa ilaahay leeyahy falaa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun weeyaan baqa korkiinna ahaan maayo murugana korkiinna ahaan mayso bale ilaahay subxaanaه wa tacaala nabadiyo amnigu si ay aadanaha faa'iido ugu leeyiin jannadiisa markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay daarta nabadgelyada oo aafaadka dunida ka dhaco dhan in lagaga nabadgelayo lahum daaru الsalaami cinda rabbihim baa ilaahay ku tilmaamaya daar nabadeed bay alle agtiisa ku leeyihin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu dadka ugu yeedhayaa inay daartaa nabadeed tahay wallahu yadcuu ilaa daari الsalaami wayahdi man yashaau ilaa siraaطi mustaqiim bale ilaahay islaamnimadaba wuxuu ku tilmaamay waddada nabadda inay tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qad jaa'akum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam jidka nabaddaa ilaahay ku hanuuniya ciddii raacda kitaabkiisa wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri biidnihi wayahdiihim ilaa siraaطin mustaqiim amnigu ayuha alaxiba waa nicma kow waxaa lagu helaa ilaahay kitaabkiisa oo la raaco hadday dadku diinta alle si qumman u raacaan kow waxay helaan iطmi'naan qalbiya amni nafsiya naf ahaan bay u degaan naftoodaa xasisha warwaryo tiiraan iyo muruga kuma dhacdo meeshuu u socdaa buu garanaya xagga rabbi inuu ku socdo xaggu ka yimuu og yahay meesha dunidu ku dambaynaysuu garanayaa ilaahay in layswada hortaagayuu garanaya saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إلهي وحو ينوت المامية ألا وحو يدين يبوهي كوا إيمان لقها لا يدين كمدة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان يا عمل صالحة عدي لقها له إلهي وحو بلن قاضي ليستخلفنهم في الأرض دولكا إلهي خلافة دي سيدين ليبيا دولكو يدين دحلسين sidii kuwii idinka idinka horreeyeyba loo dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum diintooda baa ilaahay subxaanaه wa tacaala makansiin doona oo taquwada leh korraysan noqon doonta walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeedna ilaahay subxaanaه wa tacaala nabad buu ugu bedeli doonaa shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waa adduunka marka la joogo ilaahay wuxuu leeyahy nabadda adduun baan idinku siinaya aayaadkani waxay ka warramayaan adduunyo aakhirana wahum min fazacin yowmaidin aaminuun baa ilaahay leeyahy aakhirana way badbaadayaan
وفزع ينبت كجرته لبدا قرب بدبادة إليهم با إلهي إليه سبحانه وتعالى نبضه يدقنانشيها السياسة ديت وغاية وإسلامكو اعتباريا لذاته غايات كلا الراضعين يكمدي هاي سيدا وقيد با قرآن كآيات بدني وحي كنت الماميان قفكو إنو النبض دينتي سوهله إنو النبض هلا نفتيسه إنو النبض هلا مالكيسه إنو نبضو هلا عرضيس يا نسليس يا شرفتيس الضرورات الخمسة دي علماء كور رمان ومسألة إنو قفكو النبض انت أسيودنو هلي كره سو ربي سبحانه وتعالى كالي وعابده وحانا إلهي القرآن كآيات بدن كنت المامية وحا الشرائع دلو سودة شيبا إن يتهي نبض دائن لهله نبض دائن لهله أي إلهي سبحانه وتعالى شرعي وسودة شي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحط المامية أدون كينا وحببا كام مغنين هذا تصدح شيء سلها شو وحادنوه الرادية أدونك وصدح ذنب النبي قلت المامية من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نبي حلي عليه الصلاة والسلام نك وابرسته إسقى معافا آمنا في سربه كوحدي سامة أهل كيسامة بلشدي سكون نبض قبا وان عندنا كبغينين نبض قبا معافا في جسده جدهان وعافمات قبا عنده قوت يوم ما انتاوح عننا هيسته نك صدح داسي سوق كلانته إنه تلكي يدد كيسلة جوجا كون نبض قبا وأنا قحنتي ميل درنكو أهين أما كيسة كون نبض واين يو كون نبض قبا دد كيسة سقول لجوجا آمن في سربي وهكذا لا يريد كيسنا وعافمات قبا وأمراض يو حسيانا هينين وحكى النبي وقلت المامي ما انتاوح عنانا هيسته أدونك وين لا عناون كما بطو صدح للشيء كما بطو أدونك واحد بني آدم كرادية ساو قد من نبي وحكت المامي يا كاسي الدنيا ذا قصة أو ررتي الدون دمانتي بكاوها يا أبو نبي قلت المامي إلهي سبحانه وتعالى مركو قلت شيئا يا قريش إلهي وحلي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ها عابدان ربي قبيت الحرام كله إيه قاتشنا كقوديي بقنا كالنبت قليي هدبا أيها الأحبة أمني قاسي قرانكو كور رمي نبت قليا داسي أسباب إيا مقومات بيلين هدو ددكو لي ما دنا وصقميو وشريو هدو ددكو لي من وينان لهلين إلا بدا فوضى مدون ودعيه إما إنه فوضى الدكتاتور كودعه وعدكو أمركو تاغليسوت تنتصد عالم الإسلامي وبدن يهي أما إنه حق فوضى ودعه سيدا قيبا بدنو عالم الإسلامي يكتر سنايهين ولا بدا الطرف ولا بدا عدم الأمنية لبدا بخوف يا عدم استقرار يالله نبد يد قناشية لبدا بانو مدنا أولين سوقيت با إلهي وحط المامية كو واحد دقناشية كينا والإيمان بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون